halkan waa xarunta gurmadka degdega ah ee cudurka coronavirus. dhawaqa telefoonka 449 ma aha mid kala joogsi leh. dadka ayaa soo wacaya lana wadaagaya howlwadeennada wasaaradda caafimaadka dowladda warbixinno la xiriira xanuunka coronavirus. waxaan sameynay meel bar dadka laga siiyo xogtana ururisa number 449 la yiraahdo la isticmaalaa ilaa hadeertan aan hadlayo sida la ii sheegay ilaa 35,000 qof ayuu telefoon ayaa soo dhacday maalin walbana waa soo dhacaan hadeertan kula hadlayo way socdaan habeenka dad wacday waad helaysaa dadkaas wacyigelin dadka way siiyaan wixii ay u baahan yihiin dadku oo macluumaad ku saabsan qofkii xanuunsan meeshuu aadi lahaa uu qaban lahaa dhammaantood si joogto ah ayaa loo siiyaa. baabuurta ambalaasyada ee gurmadka degdega ayaa ah kuwa heegan sare ku jira. 6 qof oo 2 ka mid ah ay yihiin ajaanib ayaa Soomaaliya laga helay cudurka COVID-19. waxaa baritaan lagu sameeyey 40 qof sida uu TV-ga Universal u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Xaashi Cali. anagu waxaan dirnay ilaa 40 sambal ma dirnay ilaa hadeertan dadka cudurka lagu sheegay 7 weeye 7daas mid ka mid ah waa biskooday oo hadda cudurkii uu ka dhamaaday ilaa hadda inta jiran oo la og yahay Soomaaliya joogta Soomaali kaliya ma aha ajaanib ku jiraan waa ilaa 6 qof inta hadda cudurka la tacaalayo Soomaali ajaanib 2 ajaanib iyo 4 Soomaali. dowladda Soomaaliya ayaa weli ka digaysa isku imaatinka bulshada. laamaha caafimaadkuna waxa ay bixinayaan talooyin caafimaad oo la xiriira caabuqa COVID-19 waxaana ay ku baaqayaan in la qaato talo bixinta caafimaad ee looga hortagayo cudurka iyadoona dowladdu ay sheegtay in intii awoodeeda ah ay ka hortagayso xanuunka ku faafay dunida. soo jeedinta iyo wacyigelinta wasaaraddu waa mid laga baaraan degay oo caalamka standardkiisa ku salaysan saadaradeed kaas in la raaca kow ah. 2 meelaha aroosyada iyo meelaha ummadda isugu timaada arrintaas ayadana waa in laga fogaado oo laga waantooba Soomaaliyaanahay ma yeeli karno haddaad si kastoo loogu sheegay maalmo boqol cusub baa shir iska qabsanaysa shirarka iyo aroosyada meelaha la isugu tago waxaan ka leenahay ilaa laga fogaado adeer si kale markaan kugu sheegnay xaranka Ilaahay baa la xiray meesha xarankii ummadda ha tigin ka jooga la yiri inaad aroos ku orado wax macnaawi sameynaysa lama arko. adduunka saad ula socoto dadka cudurku taabtay oo lagu xaqiijiyay waa 1 milyan ku dhawaad dad away 50,000 qofna waa dilay marka loo fiirshay adduunka maanta siduu yahay Soomaaliya wixii tabarteeda waa dadaashay waxaan aaminsanahay in alla intii dal tabarteena oo awoodeena uu dagaalami karo inaan dagaalnay dadaalnayna. halkan waa mid ka mid ah goobaha karantiilka ee loogu talagalay dadka looga shakiyo ama lagu baaro xanuunka coronavirus-ka. waa goob ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya. dareenka cudurka coronavirus-ka Soomaalida waa ay qabtaa oo waxaa jira dad Soomaaliyeed oo ku noolaa dunida caalamka oo cudurka u geeriyooday. dowladda Soomaaliya dhawaan waxay qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurkan waxaa la naxalnimay diyaaradihii caalamiga ahaa ee duulimaadyada Soomaaliya iyadoona la joojiyay isku imaatinka dadka iyo goobaha waxbarashada. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.